munaasabadan ay xilka kula wareegayeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha dibadda iyo deegaanka iyo horumarinta miyiga oo uu dhowaan isku bedelay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo si wada jir ah u qabsoontay ayaa lagu qabtay hotel Mango ee magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay wasiir ku-xigeenno xildhibaano agaasimayaal guud gudoomiye ku-xigeenka hay'adda maamul wanaagga la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada shaqaalaha labada wasaaradood iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka shaqaalaha labada wasaaradood waxaana iska daba mareen kartidii shaqo wanaagga iyo dadaalkii ay muujiyeen labada agaasimo guud ee xilka la kala wareegaya muddadii ay joogeen wasaaradaha ay xilalkooda wareejinayaan liibaan ismaaciil buraale gudoomiye ku-xigeenka hay'adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada iyo cabdi abakoor oo ku hadlayay afka hay'adda UNDP wasaaradda deegaanka la shaqeysa ayaa labada agaasimo guud ugu duceeyeen eebbe xilka ku asturo iyagoo ku bogaadiyey waxyaabihii ay ka qabteen wasaaradaha laga bedelay cabdinaasir axmed xirsi agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga horaan uu agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo cabdirasaaq jaamac nuur naakhuud agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda horaan uu agaasimihii guud ee wasaaradda deegaanka oo munaasabadaasi hadalka iska daba maray ayaa sheegay in ay si aad ugu faraxsan yihiin wasaaradaha ay xilalkooda la wareegayaan iyagoo ka sheekeeyay waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay joogeen wasaaradaha ay xilalkooda wareejinayaan marka waxaan kugu soo dhaweynayaa agaasimo guud wasaarad u diyaar shaqada markaan u galo wasaaradda deegaanka ee cusub ee la soo bedelay waxaan aad iyo mar kale uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka inuu ii soo bedelo wasaaradaha ugu culus oo ah deegaanka aynu ku dul noolahay oo runtii hadduu deegaanku xumaado ama wax dhibaato ku dhacdo shaqada kale ee wasaaradaha ayaan inay runtii suuro gelin ayaan aaminsanahay ama arrimo dibadda ha ahaato ama wax kale ha ahaato aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan cabdinaasir ugu wareejinayaa wasaarad xarunta iyo gobolada ka wada shaqeysa dhammaan xafiisyadeeda dibadda iyo guduhuba ay qalabaysan yihiin shaqaalaheeduna ay yihiin shaqaale waltareena oo shaqada si fiican u yaqaana transport ka warwaremaysid sanadkan u dambeeyay waxaanu qaybinay 15 baabuur oo badidooda goboladaanu siinay oo goboladu imka ay ku shaqeeyaan waxay u baahan yihiin day to day inaad uga warhayso oo aad maalin walba ogaato wasiir ku-xigeenada wasaaradaha horumarinta caafimaadka Mahdi Cismaan Buuri iyo arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay labadoodaba waxaan rajeynayaa guul waxaan leeyahay deegaanka sidoo ula shaqeynayseen muxuu ahaa cabdirasaaq ula shaqeeya naasir muxuu ahaa wasaaraddan khaarijigana waxaan leeyahay sidoo ula shaqeynayseen muxuu ahaa cabdinaasir ula shaqeeya cabdirasaaq laabta u sii daaya labadiina wasaaradoodba waxaanu si kaliya laaba u soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda cabdirasaaq waxaanaanu soo wootiyeynaa oonu si sharaf leh iyo gobonimada u soo wootiyeynaa walaalkaygii hore saaxiibkayo cabdinaasir agaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda wasiirada wasaaradaha deegaanka iyo horumarinta miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare iyo xidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Cilmi Aadan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa duco iyo dadaaranba u jeediyay agaasimayaasha guud ee xilalka la kala wareegay waxa weeyaan agaasimo waliba wuxuu lahaa khibrad wuxuu lahaa dumuuxaad iyo ujeedooyin uu doonayo inuu qaranka ku fuliyo wuxuu lahaa balaano kala duwan wax aad iyo aad u fara badan ayuu lahaa هذا يصير مركز الضوافنا دبلها تقبله وحلاقي الموضوع كأننا تشبكي ولا كسرته ومن عسول جلس وعلى اللي ولا تشبك كوجيا إسكسر وريك كلام كوري ساعة واحدة ولا بحن سودوينينا نقاسمها جود عبد الناصر نوي منا يهدي الله يدعي نوي مبا إنه ما أنت هل كان كسودوينينو بحن وساردها سودوينينا أقاسمها إمكا تجي وزارة arrimaha dibadda cabdirasaaq jaamac nuur aad iyo aad baan u sii sagooteynaa waxaananu leenahay insha allah wasaaradii aad ka tagtay iyo taa tegaysaaba labaduba aabiyo hooyo ayay ku noqonayaan runtii staafka labada wasaaradoodba waan hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa wasiirada maanta halka joogana iyo marti sharafta kale halkan noogu timi la taliyaha madaxweynaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka maamul wanaagga iyo bahad miidiya aad baan u mahadsantii waana soo sharafteen gidigii ilaahay haydi wada sharfo gabagabadii waxaa si rasmi ah ay labada agaasimo guud la wareegeen xilka labada wasaaradood ee loo kala igmaday iyada oo qaar ka mid ah shaqaalaha labada wasaaradoodna ay halkaasi shahaado sharaf ku guddoonsiiyeen labada agaasimo guud